ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga meel walba adduunka joogtaan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan insha allah qeybtiisii labaad gudagalaynaa brogramkii aan la dardaarmi jiray dhalinyarada, kaasoo aan ugu magaca daray waxaan farxadda ama guusha ama deganaanshaha ka raadinaa meel qaldan haddaanu nahay dhalinyaro. walaalayaal, brogramkan ayaan jeclaystay inaan walaalahayga muslimiinta ah la qeybsado. run ahaantiina sidaad ogsoon tihiin walaalayaal, nolosha aan ku nool nahay waa imtixaan. imtixaankana sidiisa dadna way ku baasaan, dadna way ku dhacaan. imtixaan haddaan maqalnaa sidaan ogsoonnahay caqligeena maskaxdeena, dadna way ku baasaan, dadna way ku dhacaan. waa sida iskuulada oo aanu dhigano oo aanu soo dhigan jirnay ama ay dadka hadda dhigtaan ay tahay imtixaanaadka laga qaado ardayda. waxaadna ogtihiin walaalayaal, ardayda imtixaanka gashaayey ama yacni iskuulada dhigatay way kala darajo badan yihiin ama way kala darajo dheer yihiin. haddaanba si kale u dhahaba, way kala caqli badan yihiin, way kala maskax badan yihiin, way kala dadaal badan yihiin. sidaas darteed waxaa lama huraan ah in ay natiijadu ay kala duwanaanayso, in ay natiijadu ay maaragtay noqonayso midba qof walba wuxuu kasbaday inuu helayo. sidaas darteed walaalayaal, waxaa marka lama huraan ah oo qofka ka tusaale qaadan karaa arrinkaasi nolosha. sidaad ogsoon tihiin, marka maadaama la kala natiijo duwan yahay, qof walba wuxuu uu kasbada ayuu helayaa. noloshana waa sidaa oo kale walaalayaal, fahankeeda iyo dhaqankeeda iyo dadaalkeeda iyo ma aragtay isku soo duubo sidaad noloshaada u maareyn lahayd waxay kaaga baahan tahay iyadana fahan iyo dadaal iyo ma aragtay juhdi. sidaas darteed walaalayaal, waxaan isla fiirinaynaa, maadaama dhalinyarada aan jeclahay inaan wacdiyo, inaan la dardaarmo. waxaan ogsoonahay waxaan u jeedo ama aan u wada jeedno indheheena maanta uu qabanayo dhalinyarada intooda ugu badan ilaa man raxima rabbi waxay iskaga nool yihiin nolol, yacni ma dhihi karo nolol xun, laakiin waxaan leeyahay nolol ay raaceen shahwadooda, ay raaceen shaytaanka, ay raaceen yacni maxaa la dhahaa rabitaankooda oo keliya, ay ilaaween fahanka guud ee noloshani iyo siduu allah subxaanahu watacaala qur-aanka inoogu dejiyey iyo nabigeena maxamed sal alay wasalam siduu inoogu sheegay qur-aanka. sidaas darteed anigoo arrinkaasi ka duulaya walaalayaal, ayaa waxaan jeclaystay marka walaalahayga inaan la qeybsadaa, yacni qeybtii labaad iyadoo ah inaan la qeybsadaa fahan guud kaasoo ku saabsan nolosha ka muslin ahaan. muslin haddaad maqashaan waxaa kasoo horjeeda waa qof aanan muslin ahayn. adduunkana waa lagu wada nool yahay, imtixaan baa lagu wada jiraa, marka qof walba nolosha si ayuu u cabiraa. marka cabiritaankaasi ayaan doonayaa inaan qeybo kala duwan aan tusaale ugu soo qaato, kadibna qofka caqliga leh maskaxda leh ilaahi subxaanahu watacaala waafajiya, wuu fahmaya xaqiiqda, wuuna isku diyaarinaya oo wuuna dadaalaya. sidaas darteed walaalayaal, waxaan isla fiirinaynaa wadada aan ku tilmaamay in ay qaldan tahay iyo cagsiga. maadaama wado qaldan haddaad maqashaa, cagsigeeda ayaa jirto, waxaa jirto wado saxsan. badana haddaad maqashaa arday xun, waxaa maskaxda kugu soo dhacaysa inuu jiro arday fiican.
waxaa maqalaysaa hadduu jiro arday baa buundo fiican keenay, waxaa maskaxdaada kuu soo dhacaysa ardayga kale inuusan buundo fiican keenin. liajli dalika maadaama aan ku tilmaamay wado qaldan ay dhalinyaradu maanta ka raadiyaan guusha, deganaanshaha, farxadda inay tahay wado qaldan, ayaan doonaya inaan waxyar idinkaga tilmaamo si aan isku fahanaa, si aan waaqicana u fiirina. sidaas darteed walaalayaal, saan sheegay wado qaldan maadaama aan tilmaamay, waxaa jira cagsigeeda oo ah inay jirto wado saxsan. marka sidaas darteed xaalada dhalinyarada ay ku jiraan ayaan wax yar ka tilmaami doona. sida ogsoontihiin walaalayaal, adduunkani maanta waa isbedel badan yahay. haddaad fiirisaa 1999kii iyo haddoo lagu jiro 2019 siday dhalinyarada u labistaan isku si ma aha, siday u fikiraan isku si ma aha, habdhaqankooda isku si ma aha. muslim iyo gaal, gaaladana isbedel ayay leeyihiin, muslimiintana ma aragtay isbedel ayaa ku dhaco maadaama ay sameeyaan atashabuh, bimacnaa inay gaalada isku ekeysiiyaan ama dadka kale oo haysta fahan kale oo nolosha ka mid ah ay isku ekeysiiyaan. laajli dalika maadaama arinku hadduu saas yahay walaalayaal, maxaa nala gudboon in aanu sameynaa? waxaa nala gudboon walaal inaanu sameynaa inaan isku barbar fiirina. allah subxaana watacaala ayaa inoo ogolaaday noloshaani intaan isweydiin karno wixii muhiim ah. allah subxaana watacaala qur-aanka uu inoogu sheegay, uu yiri qul inamaa, nabi sal slam asoo la hadlayo, qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilahi mathna wafuraada thuma tatafakkaruu. maanta qofka wadamadani yurubta ama dibadahani ku nool wuxuu tafakur zaa'id samaynayaa mid ka duwan qofka ku nool wadankeena, maadaama qofka wadankeena ku nool dadka dhawaa muslimiin, habdhaqan isku mid ah leeyahay, masaajida waa laga aadimayaa, yani isbedel badan ma jiro. ama ilaa dalika markii yurubtan iyo lasoo galay iyo dibadahan walaalayaal, waxaad aragtay dad naga duwan. sidaas darteed qofku wuxuu aqli u samaynaysaa, maskaxda u samaynaysaa inuu tafakur sameeyo. aayaat min aayaat الله ويان إليه سبحانه وتعالى قرآن كسنو شيء كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. سببت أفكرين إن ما أها إن لهنا قفك ساقلدن قفك ساحسن. سببت أفكرين وحيتها سببت أنك كبت بادي لهن أدونكني آخرا ما دام أن رميسنهي أن تؤمن بالله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إن كفكرنا مستقبل كينا أو ما لنت يوم القيامة أو qabriga waxaan ku kulmi doono. sidaas darteed walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin dadka isku mid ma ahan. saan soo tilmaamay, isku fahan ma aha. nolosha maanta qofka oo ma aragtay ilaahay aaminsaneen haddaad weydiisaa yani ma hiya yani waa maxay hadafkaaga nolosha, wuxuu leeyahay inaan jaamacad ka baxaa, inaan famil helaa, inaan caruur dhalaa, inaan ma aragtay holidaygayga baashaala, banoonigayga ama waxa hobigayga aan ciyaara, kadibna markaa dhinto waa isku dhamaata, arrintu way soo gabagabowday. hada arrinta oo ma aragtay aan ku tilmaamay inaysan ahayn arrin saxsan. arrin kale ayaa jirto, dad waxaa jiro markaa weydiisid hinduismika camal ama buddhismika markaad weydiisaa waxay ku leeyihiin waan soo noqonaynaa anakoo ma aragtay qaab kale ah. bimacnaa waxaa loola jeedaa hadduu ahaa qof wanaagsani wuxuu soo baxayaa asaga oo wax wanaagsan adduunkan ka ah, hadduu ahaa qof xunne wuxuu soo baxayaa asagoo qof xun ahaa. taasna waa qayb kale. filosofigana walaalayaal ايك جواب ما بهايانبو كما قال شيخنا الفاضل رحمه الله تعالى وحفظه الله ورعاه شيخنا مصطفى حاج اسماعيل مرء كهلا ان الله شفاهن كذا اي وحوت المامين تيوري ان ادون كان لو دقو ددك marka aan ilaahay aaminsaneen in theory mar walba cusub soo saaraan. qofkan markuu theory soo saaro oo theorygiisa loo bagi waayo, qof kale oo ka cilmi badan ayaa imaanaya, qofkan waa laga yani maxaa la dhahaa waa laga taqalusaya, mid kale ayaa raacaya. theory bacda theory bacda theory illa al'an way socotaa. filosofigan ay kana wax saxsan ma jiraan ba. maanta hadaa lagu dhaho qamiiskan waa cad yahay, qof kale imaanaya waa cagaar iyo kule waa salabadiina saxsantiin u leeyahay. maxaa yeelay ninka qaab uu arkay, adigana qaab uu aragtay. laajli dalika marka taasina nolosha mid ayay kamid tahay. waxaa kaloo jirto walaalayaal dad kaloo lagu magacaabo inaysan wax dhanba aaminsaneynba. su-aal baad weydiinaysaa, maxaad aaminsantaa adduunka, maxaa ka aaminsantaa, maxaa ilaahay ka aaminsantaa, maxaa nolosha ka aaminsantaa? wuxuu leeyahay ani nolosha horta ilaah ma aaminsani. waa caqiida dad ay haystaan, yani waa aaminaad dad ay haystaan, ilaahay ma aaminsani ayay ku leeyihiin. okay, su-aasha meesha taalo waxay tahay maxaa aaminsantaa? waxaa aaminsanaha big bang. big bang waxaa la walaal waa fahansan tihiin, dadka iskuulada soo dhigta ayaa fahansan. waa explanation waxay dhahaan oo dhacay waa hore
oo ma aragtay waa hore millionaire ay dhahan yani millionaire ka hor ayuu dhacay dhahan. explanationkana marka asaga ayaa ka dambeeyay in adduunkan ay saan noqdaan. big bang theory waa theory la aqristo dadka ma aragtay cilmi baarayaasha ah oo cilmiga ma aragtay maadiga ku takhasusay inta ugu badan ayaa waxay tilmaameen in dadkaas aaminsan yihiin inuusan ilaah koonka abuurin. waa aaminaad kale walaalayaal. marka arrimahaas oo dhan qofka dhalinyarada marka ay kula kulmaan asagoo aaminsan rabbus samawati wal ard al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, haduunan diintiisa fahmin, haduusan diintiisa cilmi ka baranin, qofkaasi boqol dadka cilmiga diinka culimada waxay dhahaan qofkaasi halis wuxuu ugu jiraa in la bedelo maskaxdiisa. sidaas darteed ayaan waxa ugu tilmaamay deganaanshaha maanta da qof dhalinyaro oo muslim weydiisa oo aad ku tiraahda waa maxay xayaatatu tayiba, waa xayaatada wanaagsan, waa maxay, wuxuu ku leeyahay ina baashaala shiishada ka shidan tahay, ilaahay subhanahu wa ta'ala dukuroon yahay maaragtay shaqaysanaya, ilaahay subhanahu wa ta'ala dukuroon yahay dad baa waxay ka haysaa daraagis, dad baa waxay ka haysaa heeso inay iska haystaan 24 hours, dad waxay iska haystaan inay kalaabiyada aadaan, dada waxay ka haystaan inay ma aragtay mala awaal ku noolaadaan, wadada waxay iska haystaan ma aragtay in la iska shaqeeyo oo salaad la tukanin oo quraan la aqrisan, waxaas oo dhan qadada waxay iska haystaan sida ma aragtay sidii rabaa inay u jaran karaan, sidii rabaa inay u dhaqmi karaan. hada hu waxaas waa marka waxaan leeyahay beel qaldan ayaa waxaan ka raadinaa farxadda iyo deganaanshaha iyo nolosha, maadaama bil aadanka maskaxdiisa la bedeli karo. allah subhanahu jalla fi ulah gacmihiisa ay waxay ku quluubteena gacmihiisa ay ku jira, kama qala nabi sallallahu alayhi wasallam yuqallibu kayfa yasha. marka qofka haduusan asaga raadsanin, allah subhanahu wa ta'ala jaanisi badan ayuuna siiyey. arinta ugu wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu manna sheeganayo oo adiga hadda ay daliil aad u tahay anigana daliil u ayaa waxa kamid ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم